wax badan ka ogow waxa loo yaqaano web hosting. Si aad u samayso website laga daalacaan karo internetka, adeega web hosting waa mid ka mid ah waxyaabaha lagama maarmaanka u ah aragtida ama helitaanka boggaaga internetka. Shirkadaha martigeliya bogagga waxay ku siin doonaan meel aad ka heli karto faylashaada la xiriira website-kaaga. Qof kasta oo qora ciwaanka boggaaga wuxuu si toos ah u daalacan karaa ama u arki karaa macluumaadka ku jira website-kaaga. Faylashaada iyo macluumaadkaaga waa in lagu kaydiyaa kombuyuutar ku xiran internetka. Kombuyuutaradan waa kuwa aad u waaweyn waxaana loo yaqaanaa web servers. Shirkadaha bixiya web hosting-ka waxay leeyihiin dhammaan kaabayaasha lagama maarmaanka ah ee loo baahan yahay si aad u kaydiso faylasha boggaaga, kuwa oo ku yaal hal meel ama wax mararka qaarkood loo yaqaano xarun xogeed. Shirkadaha martigeliya bogagga internetka waxay ka caawinayaan ammaanka software-ka iyo xawaaraha isku xirka bogga internetka. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee adeega martigelinta webka uu ka caawinayo ganacsigaaga waxaa jira wax loo yaqaano website uptime. Marka ay timaado ganacsi internetka ah, macaamiisha ayaa booqan kara website-kaaga waqti kasta iyada oo aan loo eegin maalin ama habeen. Website speed, soo kicitaanka bogga ugu dhaqsaha badan waxay kordhisaa macaamiisha inay booqdaan website-kaaga ayaga oo daneynaya dhaqsashaha ay u heli karaan adeegooda. Waxa kale oo uu ka caawinayaa taageeridda macaamiisha iyo ammaanka software-ka. Aynu gudagalno qaybaha kala duwan ee web hosting-ka. Waxaa jira wax loo yaqaano shared hosting. Waa kayd wadaag loogu talagalay inay dad badan wadaagaan. Haddii aad iibsatid hosting-ka noocan ah, waxaad kayd la wadaagi kartaa macaamiil kale oo ka mid ah shirkadda. Hosting-ka noocan ah waa midka ugu fudud ee la heli karo uguna qiimaha jaban. Dedicated hosting, shirkaddu waxay ku siin doontaa dhammaan serverada adigoo leh aqoonsi gaar ah. Waxaad si sahal ah u maamuli kartaa mid ama in ka badan bog adigoo isticmaalaya dedicated server ama server kuu gaar ah. VPS hosting waxay u taagan tahay virtual private server oo ah kayd loogu talagalay shirkadaha ganacsiga yaryar iyo kuwa waaweyn. Waa hosting lagu saacideynayo macaamiisha inay kor u qaadaan ama ay yareeyaan xaddiga kaydkooda iyadoo aysan qof kale la wadaagin kaydka noocan ah.